بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكوسو دوادا ورarka danwadaag media group oo maanta ku saabsan Mukhtaar Robow oo la qorsheynayo xabsi guri in la dhigo warar soo baxay ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in xabsi guri la dhigo Mukhtaar Robow oo Mansuur oo gacanta dowladda ku jira Robow ayaa waxa uu ku dhex xiran yahay in xarunta taliska ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee Habar Qadiijo waxaana hadda la qorsheynayaa in xabsigiisa laga dhigo mid guri ah ila waradiyo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay damacsan tahay sidii Xasan Daahir Aways looga dhigay xabsi guri in Robow looga dhigi rabo iyadoo uu socdo dadaalada arintaasi ku saabsan Robow ayaa xabsiga la dhigay bishii December ee sanadkii hore markii uu isoo sharaxay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo qabatay magaalada Baydhabo tan iyo xilligaas Abu Mansuur laguma soo oogin wax dambi ah lamana soo taagin maxkamad gasha ama dhageysata in sababtu ugu xiran yahay dowladda Soomaaliya waxa uu bishii Agoosto ee sanadkii 2017 soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo xilligaas ku dhawaaqay inuu la dagaalamayo Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaa hore xabsi guri u dhigtay Sheekh Xasan Daahir Aways oo ilaa hadda xabsi guri ah si aad u hesho warar joogto ah iyo sidoo kale muuqaalo ku xiiso geliya fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee danwadaag media mahadsanidin